waxaa jira wiil yar oo la yidhaahdo Dre Barker oo 12 jir ah. Hooyadiisa magaceeda waa Sherry, waa hooyo keli ah. Teegeedii wuu geeriyooday maalin maalmaha ka mid ah. Hooyadiis ayaa shaqo cusub ka heshay Shiinaha, waxayna labadooda ka tageen magaalada Detroit ee dalka Mareykanka una guureen magaalada Beijing. Markii halkaas tageen, Dre wuxuu la kulmaa gabar qurxoon oo la yidhaahdo Meyin. Waa gabar violin ku ciyaarta, isla markiiba ula dhacsan yahay. Laakiin waxaa jira wiil kale oo dhibaato badan wata oo la yidhaahdo Jane, wuxuuna ahaa arday xirfad u leh kungufuga. Jane wuxuu qaraawo dhow leeyahay Meyin, markaas ayuu Dre u diiday inuu la saaxiibo. Jane iyo kooxdiisa waxay bilaabeen inay si joogto ah u dhibaan Dre. Mar waa la garaacaa, mar waa la caayaa, mar waa la handadaa. Dre wuxuu markaas madaxa uga shubay Jane iyo kooxdiisa baaldi biyo oo wasaq ah. Taasi waxay sababtay inay eriyaan oo si xun u garaacaan. Nasiib wanaag waxaa soo fargeliyay nin dayactirka dhismaha u shaqayn jiray Master Han. Asaga ayaa badbaadiyey Dre, wuxuuna muujiyey inuu yahay macallin qabiil ku ah kungufuga. Master Han wuxuu ku daweeyey Dre hab dhaqameed Shiinees ah oo la yidhaahdo fire cupping. Master Han wuxuu u sharxay in Jane iyo saaxiibadiisa aysan asal ahaan xumaan, balse Mr. Lee oo ah macallinkooda kungufuga baray inay noqdaan naxariis la'aan. Dre markaas wuxuu ka codsaday Master Han inuu baro kungufuga. Master Han wuxuu la tagay Dre xarunta Fighting Dragons si nabad looga dhigo khilaafkooda, laakiin Mr. Lee wuu diiday nabadda, wuxuuna ku amray in Dre uu la dagaalamo Jane. Master Han wuxuu soo jeediyey in Dre uu ka qayb galo tartanka kungufuga, wuxuuna dalbaday in Dre nabad ku tababarto ilaa tartankaas. Mr. Lee wuu aqbalay, wuxuuna yidhi haddii Dre uusan imaan tartanka, labadiina waa idin dhaawici doonaa. Markaas Master Han wuxuu bilaabay tababar adag, ma ahan keliya feer iyo laad, wuxuu diiradda saarayaa degenaansho, edeb iyo garasho. Dre wuxuu si isdaba joog ah u sameeyaa dhaqdhaqaaqyo oo u malaynaya inay sahlan yihiin, sida inuu iska siibo jaakada haddana xirto si murqaha jirkiisa u xasuustaan tababarka. Wuxuu Master Han la tagaa macbud, halkaas oo uu Dre ka cabo biyo ceel ah. Haweeney maska dhigaysa in dhaqaaqeeda ku daydo, waa haliyey la yaab leh oo niyad dhis u noqota. Kadib isbuucyo tababara, Master Han wuxuu siiyey Dre maalin fasaxa. Dre wuxuu ku qanciyaa Meyin inay dugsiga ka maqnaato si ay u wada baxaan. Markii waalidiinta Meyin ogaadeen, waxay u arkaan in Dre uu yahay saameyn xun, waxayna Meyin ka mamnuucaan inuu la kulmo. Markaas Dre wuxuu helaa Master Han oo murugo la caway, isla markaana baabuur burburinaya. Wuxuu u sheegay Dre in isla baabuurkan ay ku geeriyoodeen xaaskiisii iyo wiilkiisa yar, waxayna ahayd wax uu naftiisa ku ciqaabayay sanado badan. Sanad kasta wuxuu hagaajiyaa baabuurka, haddana burburiyaa si uu murugada uga nasan waayo. Dre wuxuu go'aansaday inuu aad u tababarto si uu uga saacido Master Han xanuunka nafsiga uu la ildaran yahay. Markii tartankii la gaaray, Dre wuxuu sameeyey raaligelin rasmi ah oo af Mandarin ah oo u diray waalidkii Meyin. Aabaha Meyin wuu aqbalay, wuxuuna Meyin u ogolaaday inay u timaado tartanka si ay u taageerto Dre. Tartankii ayaa bilaabmay. Dre oo hore isugu kalsooneen ayaa si geesinimo leh uga badiyay ciyaartooy badan, laakiin Mr. Lee wuxuu ku amray ardaygiisii Liang inuu dhaawac u geysto Dre. Liang wuu u hoggaansamay, wuxuuna si daran u dhaawacay lugta Dre. Liang waxaa laga saaray tartanka. Drena wuxuu u gudbay kama dambaysta, wuxuuna la kulmay Jane. Lugtiisu way dhaawacan tahay, wuxuuna Master Han ka codsaday inuu ku daweeyo habka fire cupping. Master Han wuxuu ogaaday in arrintan tahay mid cabsida laga gudbayo, markaas wuu aqbalay. Ciyaartii kama dambaysta waxay ahayd mid la yaab leh. Jane wuxuu si daran u weeraray lugta dhaawacan ee Dre, laakiin Dre wuu istaagay. Wuxuu adeegsaday istaaga masaska uu ku arkay macbudkii hore. Laad madax ah ayuu kaga adkaaday Jane. Markaas Jane iyo dhammaan ardaydii kale waxay ixtiraameen Dre. Jane ayaa koobkii si sharaf leh u guddoonsiiyey Dre. Ugu dambeyn, dhammaan ardayda Fighting Dragons waxay salaam weyn siiyeen Master Han, waxayna aqbaleen inuu yahay macallinkooda cusub. Halkaasna waxaa ku jabay Mr. Lee.